السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. dhammaantiina adduunka meel walba ka joogtaan waa idin salaamay. waxaan rabbil caalamiin ka baryayaa bishaan barakeysan oo ramadaanka aan ku jirno inuu ilaahay camal kasta aan sameynayno, soonkeena, qur'aankeena, salaadaheena, dhikirkeena, sadaqadeena, ay shay aan sameynayno inuu ilaahay naga aqbalo. aan rabbil caalamiin aan ka baryaynaa insha Allah ta'ala. qodobkeena maanta aan isleeyahay inaan taabto oo muhiim ah oo loo baahan yahay oo laga marmaan ay tahay waxa waaye qodobka ku saabsan in aad cuntid shay xalaal, maalkaaga inuu ahaado maal xalaal, in aad quusatid cunto xalaal, jirkaaga in xalaal aad gelisid, caruurtaada inaad xalaal gelisid, xaaskaaga ilmahaaga xalaal inaad gelisid, adiga ahaanne xalaal inaad cuntid. maxaa yeelay xalaasha aad cunaysid aday faa'iido ku tahay. xalaasha aad cunaysid khasaaro badan iyo dhib badan uu ka ilaalinaya. sidaa darteeda inaad xalaal cuntid waa laga marmaan, waa muhiim. xabiibkan ayaa noo sheegay asxaabada ugu dardaarmi jiray markastaba in calooshooda cuntada ay gelinayaan inay noqoto cunto xalaal. markasta waxay cunayaan inay noqoto xalaal ay noqoto. maxaa yeelay calooshaada haddaad xaaraan aad gelisid, calooshaada xaaraan aad gelisid, ducada ma la aqbalayo. hadda muslimiinta meel kastaba ducooyin waa si loo duceynayo maasha Allah. dad badan waxay ku leeyihiin sheekhu inta sanad duceysanaya ducada maxaa loo arki waayay, ducada inta ka baxday. su-aasha waxa waaye bal aday isweydii, aday isfiiri, adiga xaaladda intay maraysaa, adiga markaad duceysanaysid ma ku dhaqantaa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam, ilaahay sunnadiisa ma raacda, ilaahay diintiisa ma raacda, miska ilaalisaa xaaraanta, miska ilaalisaa, mas adiga wax kasta caadi ku yihiin waa iska socotaa. yani waa fi sabiilillah wixii adiga aan ku cilin waa dhacaysaa. guriga aad degan tahay ma guri xalaal miya? guri adag u shaqaystad miya? guri adag kusoo dhidid miya? ilmahaaga maalin kasta bacda hilibka iyo mooska iyo cuntada u keenaysid ma cunto adag kusoo dhidid miya soo shaqaysatay, mise cunto oo been kusoo qaadato waay, mise cunto aad soo dhacday, ama cunto oo isbaara u samaysatay. isbaarada aad soo dhacday ma ilmaha siinaysaa si ilmaha dhow ku koraan. dadkan Yurub joogo qurbaha ilmihii 20 sano lagu hayay meeshan ku dhasheen 30 jir ay ku gaareen, had ilmihii far lagama hayo, far ma laga hayo. hooyadu waa daashay, aabihii waa daalay, waxay leeyihiin ilmihii waa ugu caasiyeen, ilmihii hadal ma dhageysanayaan, ilmihii hadal ma maqlayaan, see wax u jiraan, meesha maxaa qaldan, sheekhow soo duceey ama maqlaysaa meel kastaba. laakiin marka sheekada gadaal loo baaro aad fiirisid, ilmahan asalkooda sidee usoo korisay, maxaad kusoo korisay, bi'ada ay ku nool yihiin haa, iyo cuntada ilmaha aad quudinaysay, caanihii iyo hilibka iyo rootiga maalin kasta aad u marinaysay sidee aad ku heshay can طريق الحلال mise xaraam. haddii xalaal aad kusoo korisay ilmahay waa duceysan yihiin, adana baraka leedahay. waa dareemaysaa ilmo baari ah oo quraan ku bartaan, masaajidda ka buuxaan, khayr iyo nicmo baraka ku hayaan, oo waalidka farxad gelinayo ilmahaas soo baxayaan. Allahu akbar. ilmo badan waxa arkaysaa xabsiyada ay ka buuxaan, xabsiyada ay ka buuxaan, waa ilmihii ku dhashay wadanka. baaritaan markaan soo sameynay, baaritaanka waxaa noo soo baxay ilmaha qurbaha lagu dhalo ayaa waxaa la rabay inay noqdaan ilmo toosan oo systemka iyo nolosha wadanka ay degan yihiin inay raacaan oo siraata mustaqimka inay saaran yihiin ayaa loo baahnay. laakiin bilasaf wa bilcaks, kuwaas wadanka ku dhasheen oo nursery soo galeen ama iskuulu meesha hoos ka soo bilaabeen ilaa kor weyn, kuwaas waa kuwa hadda xaaladooda baaba'san, kuwaas waa kuwa jeelada iyo xabsida ka buuxaan, kuwa oo Soomaaliya Afrika laga keenay nolol ay soo arkeen,
nolol la soo arkeen nolol aan ciyaar ahayn nolol aan isku jaxjaxaynin nolosha inay adag tahay inuu qof shaqaysto waaye qofkaas maskaxdiisa soo dhisan asoo fuurba oo wadanka imaanaya markaas wuxuu leeyahay noloshii aan soo arkay wallahi waa sax waaye aniga ciyaal lama ay qadanne aan ka faa'iideysto meeshaan horumar aan ka gaaro kaas saas u fikiraan laakiin kuwan Yurub lagu dhalay si walba hadday sameeyaan meel walba ay u dhaqaaqaan dhinac walba ay u ordaan ilmihii waxaa arkaysaa hooyadii aabaha bariis iyo badar ku guraan caanaha talaajada iska buuxdaa ismariskooda waa iska cunayaan waalidku wuxuu ku leeyahay haddii ilmahayga guri la ii imaado hadduu guri la ii jiifaba alxamdulillah intaasaan alxamdulillah aan ku jiraaba hadduu guri la ii jiifaba qaarna maba la arko meesha ka bixin kala sheeg xabiibka maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiiska inuu ugu sheegay qofna janna ma galaayo ilaa la weydiyo can arbaca afar shay in la weydiyo afarta shay mid ka mid waxa waaye maalkaaga xaggee aad ka keentay allahu akbar maalkan xaggee ka keentay sidee kusoo shaqaysatay yani maalkan maal aad kusoo shaqaysatay usoo dhididay ya oo adiga gaari soo kaxaysay ama bas soo kaxaysay ama taxi soo kaxaysay ama xafiis ka shaqeey maal adiga xaq ah u leedahay oo maanta xaq ah ku qaadatay adiga iska leedahay oo kusoo dhididay maalkaas miyaa oo عن طريق الحلال أكا كنتي ما أهن قف شركتها خنزير كشقينا يو بيها دقايو يو خمر إيبنا يو أي شيء قف أن حارانتي حلالت أن وكل بحسنين اسكبوحان حارانتي حلال شبه ده جرام وكل بحسنين ما يروى لدغنيا هاي قربان لدغنيا هاي شيخو دينا قداف وذلك أفريقيا جو حولي هاي أنت مرحلة كلام كجرنا نقول كلام كجرنا حالات إلا بدل وايه سام أنفعي سو وأنا دي dad badan asaas ku leeyihiin muslimiin badan waxa arkaysaa had guriga iibsadeen ribo iyo waxa sadcaad iska naqataba ma sheekh fulan masar jooga isoo fadwayo mid sudan joogo ay isoo fadwo wuxuu dhahay hada Yurub degan tahay oo marxalada adag tahay ay dib tahay la baas guri iska qaado ninkaas uu wareegaya sagaal sheekh wacaya sagaalka sheekh su'aashu wadana sheekh guri rabana iibsado sagaalka waxay dhahan sheekhow ilaah kaga baq ribaha qaadinin waa xaraan waa dambi waa ka fogow inta ka fogaan kartid sheekhi tobanad uu waco hadduu dhaho sheekhaas haa okay waa iska dhib ma lahan oo sheekada waan dhageystiyo sheekh oo wadanka aad degan tahay degan ma ahan sheekh marxalad ku jirto fahamsan ma ahan sheekh oo ku fadwo meel banaan soo jooga wuxuu leeyahay iska qaado ribada iska qaadatay qofkii ku iimaana kadib guru ribo iibsaday asiga waa gubanaya wuxuu leeyahay ma seexan kari hurdlaan ugu dhacday jirka cunaya jirka huraya حسلوني ملهن دقناش ملهن of course ما حس ملهن يسألها نسا قفكي ربقاته وحلا فأذن حرب من الله ورسوله اسكت دياري دقال الله أكبر إلهي رسولك إنا لدقاشي ملائكتي اسكت دياري حتى كراين كرت رب العالمين ملائكتي النبي صلى الله عليه وسلم اسكت دياري النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي المؤمن قفكم مسلم كمؤمن أدون كان وحيقتها وحبسي أكلوه كان قال كان والو فضي واسكر حسنا wax cilnay malahan laga adin badan muslim tahay oo mu'min tahay ilaahay aaminsan tahay waxyaalo badan naftaada jecel waxyaalo badan naas iska sameeyay jeceshahay ayaa nafta ku cilinaysa diinta ku cilinaya rabbil alamin jecelka aad jeceshahay ayaa ku cilinaya maxaa yeelay muslim tahay mu'min tahay meesha aad u socotid ka khayr badan adduunkan oo dhan qofkeena jannada yar la siiyo heblow جانا يريس على سيء جانا يريس كحالة هاي توان جر أدونك كوينه ثالثة كسويسها كبر مقف كين جانا فردوس أوجلو الله أكبر معك خير بدن الله أكبر مركز كده وحواي حلال قوس صدق النقو دك بربريين هالنقون نبي هو شيء قعنته هو سيسو وما أنتنا ما الله ما رسول ما الله ما رسول يكلمي العكس صدر وابا أنا كان واي بيها لواي موسكا لواي عنتها لواي وابا أبني أوار قف ما أنت أردان على العجر له وكل العقل صدر إيه الكيف ملك يكون نعيا وكراسين أيام مرك التلفون كصار دعاي وحلا وقفكي وما أنت العكس صدر له كله ولا جاء مصايا والعياذ بالله ما حد عاي بريد هذا توكشد هذا بدنا ساعة كل ما توكشد هذا بدته حتى إنسان كي كل دقناين وكويسين وكا أرضاين حتى إهلك حتى هاي أبدا نقمان هذا مالك سويعش هاي $100 صدر هاي $100 صدر هاي إذا أباها كل لين حتى أيه كره سنايا وحيل إن كان وكيل ما تقدر العكس صدره كله يهي نفسي
xabiibku wuxuu dhahay gacanta hooseyso waxaa ka sharaf badan waxaa ka karaamo badan waxaa ka khayr badan gacanta sareysa mar walba noqo qof gacan sareeyo gacantiisa xalaashiisa qudsanayo kullama adiga shaqadaada xalaal ay tahay shaqa ceeb ma ahan dhulka soo xaq gaariga soo dhaq kabaa soo luushitay يعني أي شقة أو أي دين تنكهر إيمانين أو حلال كوت هاي كشقيسو أمبيدا سو شقيين أمبيدا سو شقيين هذا شقة عيب معهن لكن سومالا ده النهاي نيكي شقيسنا أي أو تمالها أها أم مقصولي سو دقاي أما كبا سو لوشتين أي ولا عانا يا هبلهم أرضها ومساكين كبو دقدقة مقصول دقدقة هادو مكو سو دالو سو شقيستو أدقو ما أنت دربي جيفتي أو ما أنت أن هالشيء سو قبنين oo maanta dhan soo shaqeysanan oo sanad kugu dhaafayo ninkii muslimiin soo dhaqay soo shaqeysanayo waxa leedahay inuu waxar iyo turniyo $10 si saaxib xaalada ay xuno ilmihiisa san ah kii shaqeysanayo waa caanaysa adana darbiga jifta haba iimaalan mana shaqeysanaysid ka kac meesha Umar ibn Khattab markuu masaalka soo galay ayaa wuxuu arkay nin saxaabi masaalka fadhiyo wuxuu dhahay ana ma baxay ma shaqeysana intaan fadhina cibaada صلاة إسيام القرآن ذكر موي ميركل وحكى القرآن عمله ماشي أنا نجوجا يا عمر بن الخطاب قولوا وسوقات الله ومسال كسر بحوا ده محمش كقبنا ساعة أرض بح صوش قيسو الحركة فيها بركة حركات أسمية نسيت ميسر دقو لبل لوس ينع شو وحل الإيبي بركة خوجرتها التجارة فيها بركة لكن معها هذه خوف بربريا يو لا التجارة كف يرسو عن طريق إيش هبكي وشقينا ساعة دينعي وشقينسا المر بحلال كو هذا maxaa yeelay adiga waxa taa insaan rabbil alamin isku dhiibay rabbil alamin ayaa isku dhiibtay adiga rabbil alamin wuxuu ku amarna waa sameynaysa wuxuu ka nahayna waa ka tagaysa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay waa qaadanaysa wuxuu ka ku dhahay waa ka tagaysa wuxuu nabi ku dhahay waa qaadanaysa wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu وما نهاكم عنه فانتهوا رب كو شيء قادو رب العالمين نبي وحكو شيء سمي رب العالمين هو سمي دين تال الرع ما حدا عادي أدون كان واسكا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أدون كان واسكا حيل يرقابا وايه نقوقف أو كملجار أو سفر أو صعود أو سي جود باي ملك أو سي صعود أما قف مرتئة أو لو ما نسدح ما نكو جيفنا أو سي صعون هايو وأرتا والدمنا مالن كستبه guri weyn aad degantahay oo xaraan ku dhistay muxuu ku tarayaa ilmihi 10 ilma dhashay oo 3 sano xaraan ku korinaysay ilmihi had ka waran marka dhimatay ay ku soo ducunin oo kan abuhu saliha hadii aaba saliha aan ahayn oo ilmihi aan ku soo duceynin adana noloshaada waa baabaysay 40 sano xalaal xaraan ma ku kala baxsadeen waa gashay bada si fiican ilmihi aad u daleysay aad u jabaysay xaaskii aad u daleysay u jabaysay nin kala iska guursanaya ilmihina iska baabaayaan خلاص lacagta adiga hadda ahaysatid oo xalaash ku shaqeysatay hadda wax ka dhiso adiga sadaqa ka baxso khayr ka sameeyso maxaa yeelay ma asubtid marka adiga adduunka tagtid kuwa aad kaga tageysay in adiga ku soo xasuusanayaan oo khayr ku sameeyaan hatta ilmaaga ahaadaan marka maalka meesha aad ka keentay wala wadinaya sidee u soo shaqeysay intee ka soo shaqeysay kaas waa su'aal lagu weydiinayo jana ma galaysid ma dhaqaaqays ilaa ka jawaabtid سؤال كلنا وحواي مال كان حقه كو استعماشي الله أكبر هذا أنا وحلاي وشن شيلن أما لو شيلن وشير بسيط عن قيمنا والله هن عن إسكتورينو قارن فان بكتوران قارن لعتنا إسراف بكسميا وقو عياران إلى وحوله وأن المصرفين هم أصحاب النار تلك إسراف كسميا قو عياران نارت أيجا أسكله والعياذ بالله نارت أيجا أسكله مال كان إله كسيي ولو سؤال يا adiga sababtu ilaahay maalkan ku siiyay oo ninkan la siinin xikmad baa jirta ilaah og hadii ninkan miskiinka dii maal badan la siin lahaa waxa laga yaabaa inuu fasahaado oo gaal noqdo oo khalaas murtad inuu noqdo laga yaabaa inuu ilaahay ka fogaado laga yaabaa dad ilaahay maal siin lahaa saasa ilaahay ugu talgalay xaaladiisa in marxaladiisa in noloshiisa insaan ahaado ayaa khayr ugu jira asiga inuu saas ahaado kan lacagta badan haysto oo wararsan laga yaabaa habeenkii ma seexdo madax xanuunana hayaa بدبريشنا هيا بوقا هيا ومدة مكي أركايا نين في عن أو ما شاء الله والاحترام ما يجمعها لغة شو منايو لكن مكو جوري هذا مسيحن كرو بوفس يبوق يوحى هيا
ما تقاند هفيرين مالك يرو هايستو لكن قف والب ميلا لغا هايستا قف والب سي الله تابانايا marka hasku darajaha ka dhigan darajaha ka dhigan qof bas si Allah haystaayo marka adiga maalka Ilaahay ku siiyay alxamdulillah dah ku shukri kabar Ilaahay inuu maalkaaga uu ku imtixaanin haduu Ilaahay maal yar ku siiyay ama miskiinka ha dhigay alxamdulillah Ilaahay alxamdulillah saan iga dhigtay intana haysto alxamdulillah Ilaahay saan iga dhigtayo khayrkiis Ilaahay ada oo saan Ilaahay ugu sii wad maxaa yeelay wax adduunka ka dambe aakhirada jannadeeda anigu shaqaysanaya adduunkan wax yar leeyahay wax gaaban waay maxaa ani waqtiga u dhumanaya meel dheer aan socdaa waqti gaaban waa waqtigaas inaan ka faa'iideysto maalkaygan aan shaqaysanay Ilaahay wuxuu leeyahay wa anfiqu maalka aan leedahay wax ka bixi min qabli an ya'tiya ahadukum maut wa anfiqu mimma razaqnakum waxa Ilaahay ku kasba ku siiyay ku rizqay wax ka bixi waa amar inta dhimashada ku imaanin marka maalka aan shaqaysatay inta sida u shaqaystay ko iyo sida u bixisay meel xalaal ah ilma agoon ah madrasad waxtar ah ceel la faagayo masjid la dhisaayo hooyada wax u taraysid xajka u dir umrada u dir ilmahaaga wax oo anfacay adduunyo u sameey adiga wax ku anfacay adduunyo sameeyso shay ay anfac leh ummadana wax u taraayo adana wax ku taraayo u sameey oo khayr ah kaasa ku anfacaya marka العموم شيكده markaan soo gaabano maalkaaga xalaal ku cun £50 ama $50 ama $100 oo ziyaada lagu siiyay maadaama aad dhehaysid aniga ninkayga waa kala tagnay separate aan nahay oo islaanta $100 la siinayo ziyaada kaliya korontada biyaha laga caawinayo oo islaanta kaligeeda guri iska joogto 4 ilmo oo odagana bacda loo tuuray taas nolol ma ahan waa soo aragnay mirihii hadda aragnay dad baaba'san diinta ka fog waashteen qaarkood ku leeyihiin nimaan ahay qaar wuxuu ku leeyahay naagan ahay qaar wuxuu ku leeyahay waxaan ahay ma ogi waxa soo dhan dhibaato imtixaan min Allah waa maxaa yeelay wax ay kasbadeen waay waxa ay kasbadeen amaanta lagu imtixaanaya waxa ay kasbadeen amaanta lagu imtixaanaya guri badan waa dhistay Dubai guri badan waa Kenya waa ka dhistay guri badan Soomaaliya waa ka dhistay guriga hadiyaa degan guriga Soomaaliya ka dhistay hadiyaa degan ilmihi au dhistay ma degan may adama degan may guriga waa iska dhistay in adeer ba guriga ku ilaalinay nin ba xabad loo dhiibo banduuq u ilaalinay guriga bil kasta waxa loo diray $50 aluu soo wacay waxa lagu leeyahay saqafkii afaqay oo lacag soo dir daaqadii jabtay lacag soo dir koronto shaqeeyay lacag dir guriga aan degnayn aabiilaysa maalin kasta ilmihi la rabay inaad aqeedadooda iyo diintooda aad dhistid oo islaam aad ka dhigtid ilmaas waa daacday guriga lacag ku khasaarasay guriga aad ma u socotid ilmahayna ma u socdaan xaaskana ma u socoto ilmihi intay fadhiyaan intay ku baabaasan yihiin ma ogo ilaahay yaa waaye rabbil caalamiin yaa waaye ma ogo way weerarsan yihiin lacagtii la rabo inaad iyagu ku isticmaashidna meel kale khada geysay la tus'alunna kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulun an ri'ati kulligin mas'uulatihin mas'uulkan waa lagu weydiinayaa ilmaha keentay nolosha ku keentay maxaad xalaal siisay maxaa xaraan siisay waa lagu weydiinayaa su'aashaas si fiican lagu weydiinayaa يهودنا رب العالمين إلهي كغبق إلهي كغبق قرقان هدو حران يالو هد كسر بحي تور إلهي أطوبكين هدي حلال أعنتن حلال شوضو كسي الصعو إنه إلهي حلال كودلو محايا لي خير إبركة هلسة إن شاء الله تعالى واللي قالنا وحران كفقاو نبي صلى الله عليه وسلم هاي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهة حلال شو عدها حارانتنا وعدها هدي متشبه وح اسكو اوكي سيست كو إمادو وح شك ديو كا قالو كتك دي ضاف إله دتسو ضاف محاد عدين تا إشرفت إلى النساء هدو وح شك كا قالو إنه حلال يا مس حاران يهي كدك إنه حاران يهي كتف كفوقو محايا لي مسلمة تهي مؤمنة تهي ونندو كذا تلبيس حلال ودنيس حلال علوشيس حلال قلنا يا تهي صدر تهي حاران تأذي فأيضا ما بكو جرت أبدا رب العالمين مر بحكبر دا إنه ودديس توسن كو آدي إن شاء الله تعالى إلهي هنقدرك حلاش عنين إلهي هنقدرك أو حلاش لور أرزاقي إلهي هنقدرك أيو رالك أو رب العالمين أو صد أدونك قاتو رب العالمين حنبري أنا قفل أدونك جو مال بالغ هيستا مالو كبك مراد إلهي إنه إلهي مراد كسيو رب العالمين حنبري أنا بيشان رمضان خير كيس بركيس إنه إلهي نسيو توفيقنا وافجيو
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.